Sota Takai wuxuu ku jiray shaqadiisa habeenka ee ku shaqayn jiray dukaan meel cidlo ah ku yaalay. Xilliyada isbuuca dhammaadkiisa markii lagu jiro degmada yarta wuu ogaa inay taraafig yar soo mari doonto maadaama aan habeenkii saqda dhexe la gaarinna habeen dheer inuu sugayo ayuu ogaa. Markii uu bilaabay inuu isku mashquuliyo alaabta inuu meelahooda ku habeeyo ayaa waxaa meesha soo galay 2 wiil oo iskoolka dhigta oo xilligaasi bareefad ka soo laabtay habeenkii ah. Sota wuxuu dhaqaaqay dhinaca xisaabiyaha isagoo diyaar u ah inuu wax ka iibiyo hadday wax soo qaataan maadaama ay keligooda meesha joogeen hadal walba ay ku hadlayeen macquul ayay ahayd in la maqlo. Sida muuqata waxay aad uga naxsanaayeen dhacdo ku dhacday wiil fasalkooda ahaan jiray kaasoo in muddo u sheegayay inay isticmaalaan game online ah midkaasoo loo yaqaano qolka guduudan. Waxaa la sheegay wiilkaasi inuu aad ugu waashay gamekaas heer uu gaaray muddo maalmo ah inuusan qolkiisa ka bixin waalidkiisa oo ahaa kuwa shaqaysan jirana aysan arrintaasi ka warqabin. Maalin ayay qolka ku jabiyeen waxayna heleen wiilkoodii oo meyd ah kaasoo uu qolkiisoo dhanna wada qariyay dhiiggiisii guduudka ahaa. Sota wuxuu isku dayay layaabkiisa inuu qariyo maadaama uusan rabin inay ogaadaan inuu hadalkooda maqlayay. Alaabtii wiilasha ayuu u xisaabiyey wuxuuna uga mahadceliyey soo booqashadooda. Way tageen Sotana isagoo aamusan ayuu meesha taagnaa oo aad u xiiseynaya gameka online-ka oo la yiraahdo qolka guduudan. Wuxuu go'aansaday inuu waco Ryota, saaxiib wanaagsan uu leeyahay iyo qof uu u yaqaano inuu internetka kaga cilmi badan yahay maadaama waxyaabo badan oo online ah uusan isaga ka warqabin. Wuxuu u sheegay Ryota wuxuu maqlay. Ryotana isagoo sidoo kale xiiseynaya ayuu u sheegay inuu fiirin doono oo uu ku soo celin doono. Daqiiqado kadibna saacada ayaa ka soo wareegtay. Ryotana kuma uusan soo celin laakiin ma uusan rabin inuu waco maadaama ay habeenbarkii ahayd waxaa laga yaabaa inuu seexday isna ma uusan rabin inuu ka kiciyo sidaas darteed fariin ayuu u diray laakiin loogama soo jawaabin. Sota oo caajisan gamekiina ilaawila ayaa wuxuu shiday kombiyuutarka yaala xafiiska yarka ee geeska ku yaala asagoo markaasi bilaabay inuu raadiyo qolka guduudka ah. Waxa kaliya markii hore helay waxay ahayd kalabyada habeenkii la aado guryaha qaabka loo sharaxo iyo sidoo kale sheekooyin qadiimi ah ilaa uu helay warar ku saabsan qolka guduudka iyo sidoo kale dhimashooyinka la xiriira. Dhimashadii ugu dambeysay Yuto Atsumi kaasoo wiil xaafadihiisa degnaa wiilashu midkii ay ka sheekeynayeen warka ku saabsan wiilkan dhimashadiisa aad ay u naxdin badneed heer la rabay inuu raadintaba iskaga joojiyo. Laakiin wuu awoodi waayey xiisihii si tartiib ayuu wuxuu isku bedelay waali. Si kadisa wuxuu maqlay albaabka dukaanka oo la soo galayo wuxuuna ogaaday inuu kastamar yimid wuxuuna isku qasbay inuu dhinaca xisaabiyaha aado isagoo aad uga xun inuu ka dhaqaaqo meesha. Markii sigaar laga iibsaday ayuu wuxuu maqlay cod ka imanaya xafiiskii yaraa. Anata wa skideska ma jeceshahay? Kastamarkii wuu tagay Sotana wuxuu ku soo laabtay qolkii mar kale ayuu hadlay. Anata wa skideska ma jeceshahay? Waxaa shaashada saarneed daaqad ay markaasi ku qoran tahay isla waxa la sheegayo. Sotana wuu xiray. Mar kale ayay haddana soo muuqatay. Anata wa skideska ma jeceshahay? Haddana mar kale ayay soo baxday. Anata wa skideska ma jeceshahay? Markasta Sota si xooga ayuu daaqada u xiriyay isagoo rajeynaya mar kale inaysan soo bixin. Ilaa ugu dambeyn ee daaqadii dhan xirmi weysay wuxuuna bilaabay qoraalkii inuu kala barmo isagoo soo muujinaya qoraal cusub wuxuuna maqlay Sota codka isagoo dhahaya Anata wa akai heyaga skideska ma jeceshahay qolka guduudan? Sota wuu qalalay waatana ugu dambeyn waa uu helay. Daaqadii ugu dambeyn wuu xiray waxaana ugu dambeyn soo muuqday liis magacyo ah kuwaasoo markaasi horay ay daaqadu u qarinaysay. Magacyadii ayuu akhriyay midda aadka uga naxisana waxay ahayd magacyada ugu dambeeya waxaa ku jiray Yuto Atsumi magaca ka hooseyna wuxuu ahaa saaxiibkiis Ryota. Asagoo aad u naxsan
ayuu isla markiiba isku dayay inuu Ryota waco, balse cidna kama qaban. Wuxuu go'aansaday si toos ah inuu Ryota ugu tago, balse isla markii uu istaagayba albaabka ayaa isxiray, wuxuuna awoodi waayay inuu furo. Daqiiqado badan markii uu albaabka garaacayay oo uu qaylinayay, ayuu si kadis ah joojiyay markii uu maqlay kombiyuutarka oo hadlaya. Anata wa Akai Heihaga Suki desu ka? Ma jeceshahay qolka guduudan? Soto wuu fiirinayay ilaa ugu dambeyn indhihiisa qabteen mindida yarta taasoo kartoomada lagu jeexo. Wuu dhoola cadeeyay, hadda wuxuu ogaa qaabkii uu meeshani uga bixi lahaa.